halkani waa magaalada Hargaysa kuwanina waa dhalinyaro isku soo abaabulay waxayna gudaha magaalada Hargaysa ka bilaabeen barnaamij iska wax u qabso iyaga oo si tabarucaad u nadiifinayo goobaha ka muuqata nadaafad darrada ee magaalada Hargaysa taaka ayaan kula kulannay xarunta dalka looga arrimiyo iyagoo markaasi ku guda jira nadiifinta ridda hore ee laga galo madaxtooyada Qadra Jibriil iyo ayaan Caydiid ayaan kaaba oo ah laba dhalinyaro ah oo ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka waxay nooga warameen sababta ku kaliftay in xilligan bilaabaan barnaamijkani oo ah mid iska wax u qabso kaasi oo ku nadiifinayaan goobaha ay ka muuqato nadaafad darrada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaka subaxnimadii hore waxaan bilownay barnaamij la yiraahdo iska wax u qabso anagoo waliba laba hablood kaliya taa yani inaad iska wax u qabsataa ma aha inaad wax weyn samayso bulshada wax u qabato ma aha wax buuran inaad samayso laakiin waa inaad ka bilowdo wajahada wadankaaga laga dheehanayo madaxtooyada marka waxaan aragnay meel kamid ah madaxtooyada oo wada dhasa calankii Somaliland wada dhasa maxaan kale qabsan karnaa hadii calankeena wada dhas yahay marka hawshaasaan ugu kaliftay inaanu hawl bilowno iska wax u qabsaa aanu dhalinyartana bilow u noqono anagu si ay cid walba iska wax u qabsay samayso marka waxa jira dad kula yaabaya imika odaweyna halkan ugu yimid waxaan ugu dhina lacag baa leedin siiyay dad badan waxay ku oranayaan runtii waa fikir wanaagsan la timaadeen oo barbilow u ah dhalinyarta reer Somaliland oo madaxweynaha hore ugu dhawaaqay inay sameeyaan doona iska wax u qabso marka intan wax weyn ba ma aha laakiin meelo badan bayna sugayeen iska wax u qabsan kaga sameyn karnaa dilaa yiraahdo hawshan waxay nagu dhalatay maalin kamid ah aniga iyo gabadhaasaan saaxiib ka nahay inaan bal anagu iska wax u qabsan ka bilowno wajahada ugu horeysay ee Somaliland laga soo galiyo waxaana weeyaan meesha kaliya cid kasta in casuubna ay soo galayso hadii calankeena wada dhas la arko runtii ma aha wax wanaagsan wanaagahay waxaan wadnaa shaqo ay lahayd maxay ahayd dawladda hoose laakiin maxaa inaan anagu hadii aan arkayna anagu qabano wax weyn lama aha marka waxa weeyaan hawl yar laakiin se waxay muhiim u tahay inay gaadho guud ahaan wadanka oo dhan aliya ciidanka madaxtooyada ayaan ka qaadanay ignan ah inuu yani ogolaansho ah inaan sameyn karno waxaan oonan amniga aanan ku xad gudbin amniga way askartu waxay joogaan meesha in amniga ilaaliyaan dadana uu nagu farxay runtii aad buu noo soo dhaweeyay waana qofka kaliya ee moraal fiican siin ugu waxaad sameynaysan waxaan hore loo sameynin waxaad sameynaysan wax ah yani iska wax u qabso barbilowgeeda ah marka hal fariin uma diraya dhalinyarta reer Somaliland ana waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa ka baxay sanadkii dhawaa yani inaad wax wadanka u qabsato ma aha inaad kursi fadhiisato anigoo jaamacad dhameeyay inaan ma fiiq qaadana ceeb maaha إلا وندك لكن وحق بتاع وحويني أنا إله بالشيء الحق بتاعنا رنتي معها وحوي وما صنت هاي ولا لا وأنا ما هاد علينا دمان وربعينته يا تليها عيدن كه واللي بقيت مدحتوي إذا إنه أقل هذا إنه هوشن قبلنا هوشن وإسكا وحق بصو دنيرت إنه ما يقانا إسكا وحق بصو لكن هوشن وإسكا وحق بصو بالكي أربعة دي أنا قامر هنا برتن قابتن أيوة وحين ده هيجو قبتين annagoo halkan marayna aniga iyo khadra astaanta calanka waliba qaybtiisa cadaanka ah oo das madoobeeyay kadibna wadaninimo ay gashay kadibna waxaan keenay fikir ah inaanu daska ka bina hadaan wax kale aanu qaban karo weyno waayo gurigiina bood ka shaqeysa sad gurigiina aad u joogto un badalkana aad ku nooshahay kadibna hawshaas aan ugu dhalatay inaan sameeyno waana noo suurta gashay idanka Ilaahay saaka waxa ka bilowday sidaan markayna waa qasriga madaxtooyada niyaanay ahayn inaad qasriga marka laga tago inaad ka soo bilowdaan meel kale oo halkan waa barbilow waana fiyaaradii wadankeena dadku markay yimaadaan halka indhaha ku dhufanayaan waxa weeyaan astaanteena calanka oo waliba qaybtiisa cad markuu dhaskaro ay madow isku bedelayso waana rajaynaynaa talaabada ku xigta inaan mid qurux badan noqon doonto dhammaan shacbi weynaha reer Somaliland ay ku farxaan maalin ama laba cisho ayaaba noo qorsheysan maanta hadii aanu ku dhameeynin alxamdulillah birina waan ku darsan karnaa maadaama idam aan ku haysano taliyaha ciidanka yani madaxtooyada markaan dhameeyno meel kasta oo isleenahay isha way qabanaysaa ibni aadamka ama dadka caalamka ka yimaada baanu ka bilaabeynaa barnaamijka iska wax u qabsad ilaa iyo inta aanu ka gaadhayno dhalinyarna bedesha oo aanu ku nasilno mooyo deynmayno hablahani way wanaagsan yihiin si fiican bay u shaqaynayaan dhalinyaro si fiican bay u shaqaynaysaa dawladda way garab taagan yihiin ma sha Allah lagu jira waa dhacdo ku cusub Somaliland waana markii ugu horeysay dhalinyaro iskood isu soo abaabulay ay bilaabaan barnaamijka iska wax u qabso
aadan cadiid Somali News hargeysa.